Maamulka isboortiga gobolka Banaadir oo shir looga hadlayay qabashada tartanka kubadda kolayga wiilal iyo gabdho ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir ku qabtay magaalada Muqdisho. Shirkan waxaa si wadajir ah loogu soo saaray sidii kor loogu qaadi lahaa kubadda kolayga gobolka Banaadir iyo in la dardargeliyo tartan kubadda kolayga degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir si degdeg ah in loo qabto tartankan. Waxaana la qorsheynayaa in dhawaan oo ka dhaco tartankan magaalada Muqdisho, iyagoona degmooyinka hadda lagu wargeliyay inay isdiyaariyaan tartankan oo ay diyaariyaan ciyaartooyda ka qaybgali lahaa. Sidoo kale shirka ayaa waxaa kasoo qaybgalay xiriirka kubadda kolayga ee Soomaaliyeed iyo sidoo kale guddoomiyaasha isboortiga degmooyinka gobolka Banaadir oo tartankan iyagana qayb ka ah oo degmooyinka ay hogaamin doonaan. Tartankan ayaa la qorsheynayaa in la qabto qaab sare loogu qaadi doono xiisaha tartanka, fursadaha ay u abuuri doonaan si dhalinyarada hibada u leh ciyaaraha kubadda kolayga ay markaasi ku soo saaraan xirfadooda ciyaaraha kubadda kolayga loogana faa'iideysto xilligan oo loo baahnaa in tartamada si joogto ah loo qabto walow waqtigiisa aad ugu dib dhacay. Dhanka kale, guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee baaskiilada ayaa ka qayb galay shir caalami ah oo loogu hadlayay horumarinta tartamada baaskiilada. Shirkaas oo lagu qabtay Scotland, waxaana kaloo shirka kasoo qayb galay mas'uuliyiinta kale ee xiriirka ka tirsan. Waxaana sidoo kale guddoomiyaha uu markaasi shirka ka qayb galay Soomaaliya ee u qaabilsan arrimaha xiriirka baaskiilada ayaa sheegay in aad u baahan yihiin in lagu taageero qalabka baaskiilada iyo sidoo kale tartanka lagu qabto iyo horumarinta ciyaarta baaskiilka oo si weyn ay markaasi ugu soo muuqan doonaan ciyaartooyda xirfadda u leh baaskiil wadista. Waxaana loo baahan yahay in tartamo waaweyn laga qabto. Shirka ayaana si wanaagsan ku soo dhammaaday.